waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. halkani waa kulmiye show. kusoo dhowaada barnaamijkeena xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doonno wararkii ugu dambeeyey dagaalo qaraar oo ka soconaya wadanka Ukraine, ciidamada Ruushka oo horumar ka sameeyay dagaalada socda, Putin oo jawaab kulul siiyay reer galbeedka, sidoo kalena soo dhaweeyay in dagaalyahano ajaaniba ay caawiyaan ciidamadiisa dagaalka ka socda gudaha wadanka Ukraine. midowga Yurub oo soo saaray go'aano adag oo ku saabsan xaaladda wadanka Ukraine. sidoo kale waxaan barnaamijkeena kugu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan 3 qalad oo uu sameeyay madaxweynaha dalka Ukraine. barnaamijkeena qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin haynaa ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. daawad haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe inoo saar, sidoo kale furgan balaalka soo noqoto daawadana ugu horeeya mahadsanid. maanta Jimcaha sirdoonka militariga Ukraine ayaa ku eedeeyay Ruushka inay diyaarinayaan weerar ka dhana warshada nuclear-ka ee Chernobyl oo gacanta ay ku hayaan ciidamada Ruushka, halka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka hadlay horumaro laga gaaray wadaxaajoodada ay la leeyihiin dhinaca Ukraine, wuxuuna sheegay inuu taageersan yahay fikradda caawinta iska wax u qabso oo ajaanibta ay ku caawinayaan ciidamada Ruushka ay ka dagaalamaya gudaha wadanka Ukraine, taas oo ka socota bariga dhexe. tani waxay ku soo beegantay iyadoo maalintii 16aad uu socdo dagaalka Ruushka uu ku qaaday wadanka Ukraine, waxaana ay ka galeen dhowr jiho wadankaasi, gaar ahaan agagaarka caasimadda Kiev, marka laga soo tago magaalooyinka Mariupol ee koonfurta iyo Kharkiv oo bariga ah. iyadoo madaxweynaha Ukraine uu ku eedeeyay ciidamada Ruushka inay beegsadeen dad rayid ah, wuxuuna sheegay in Ruushka uu isagu ka shaqeynayo sidii uu Ukraine u geyn lahaa calooshood u shaqeystayaal, waa sida uu hadalka u dhigay. wasaaradda difaaca ee wadanka Ruushkana waxa ay sheegtay in ay maanta gebi ahaanba burburiyeen 2 garoon diyaaradeed oo military kuwaas oo ku yaala wadanka Ukraine, waana garoomada Lutsk iyo sidoo kale Ivano. waxaa sidoo kale halkaasi ku burburay diyaarado dagaal, laakiin khasaaraha guud inta ay leeyihiin ilaa iyo hadda lama shaacinin. geesta kalena madaxweynaha wadanka Finland ayaa sheegay in uu u gudbiyay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin sida wadanka Ukraine madaxweynahooda uu diyaarka ugu yahay in uu wada xaajo toos ah la yeesho Putin si looga baaqsado dagaalo kale oo kasii dhaca gudaha wadanka Ukraine. dhanka kalena Kamala Harris waxa ay tiri Mareykanka waxaa ka go'an in uu taageero dadka reer Ukraine ee dhibaatada wajahaya maadaama dalkooda uu dagaal ka socdo. geesta kalena midowga Yurub ayaa shir waxa uga socday magaalada Paris, waxaana looga hadlayay arrimo dhowra. afayeenka midowga Yurub oo soo koobayay nuxurka wadahadallada iyo wixii ka soo baxay waxa uu yiri fariinta ugu caansan ee shirka Yurub waxa uu ahaa midnimadeena. shir madaxeedka Yurub ee Paris ku qabsoomay waxa uu ahaa sidoo kale mid aad u daneynayay in laga wada hadlo beddelka kheyraadka tamarta ee Ruushka. helitaanka codsiga Ukraine ee ku biirista midowga Yurub waa tallaabada ugu horeysa iyo sidoo kale calaamad aad muhiim inoogu ah. sidoo kale waxa uu yiri afayeenku waxaan fahamsanahay niyadjabka reer Ukraine haddii aysan helin gargaar iyo sidoo kale taageero degdeg ah. Yurub waxay diyaarinaysaa beddelka saliidda iyo gaaska Ruushka, laakiin tani ma dhici doonto isla markiiba. sidoo kale afayeenka ayaa sheegay cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka in laga yaabo inay dhaawici karto shirkadaha Yurub, laakiinse waxa uu yiri waa qiimo la bixinayo. waxaan beegsanaynaa ayuu yiri cunaqabateyn shakhsiyaadka awoodda badan ee Ruushka, kuwaas oo horinaya mishiinka dagaalka. inkasta oo ay sii xumaatay ayuu yiri ma aanu jarin xiriirka Kremlinka, laakiinse ma aragno wax diyaar u ah wadahadal siyaasadeed. waxaan sii wadi doonaa ayuu leeyahay inaan la hadalno madaxweyne Putin si loo joojiyo dagaalkan wax u dhimaya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. hase ahaatee inkastoo reer galbeedku ayaga kaliya ay isu haysteen inay wax cunaqabateyn saari karaan, Ruushka ayaa wax soo saarkiisa idil ka goostay dalalka reer galbeedka, taas oo maalmaha soo aadan cirka usii shareeri doonta suuqyada dalalka Yurub iyo guud ahaanba caalamka oo aad loo dareemi doono. dhanka kalena Reuters sida ay baahisay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay xaqiijinayaan dilka 564 qof oo Ukraine tan iyo Febraayo 4 oo ay sidoo kale ku jiraan 41 caruura. barnaamijka cunnada adduunkana waxa uu leeyahay dagaalka Ukraine wuxuu kor u qaadi karaa qiimaha cuntada adduunka ilaa 20%. geesta kalena la taliyaha madaxweynaha Ukraine waxa uu yiri Kiev waa la go'doomiyay, laakiin waxay diyaar u tahay inay dagaalanto. dhammaan hoggaanka siyaasadeed ee wadanku
waxay ku wada sugan yihiin gudaha caasimadda, taas oo ka dhigan in ciidamada ruushku ay markan diyaar u yihiin inay gudaha u galaan magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine mar haddii 16 maalmood magaaladaasi ay ku hareereysnaayeen islamarkaana ay sugayeen magaalooyinka qaar in laga saaro dadka rayidka ah. dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha waddanka Ukraine waxaa la leeyahay 3 qalad ayuu u sameeyey. bal aynu eegno warbixin kooban oo arrintan ku saabsan. duulaanka uu madaxweyne Vladimir Putin ku qaaday Ukraine waxa uu galay maalintii 16aad xilli kolonyo militariga Ruushka ahna ay masaafo kooban u jiraan caasimadda Kiev. madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u muuqda mid ilaa iyo hadda ay ciidamadiisu iska caabin kala hortageen ciidanka Ruushka, balse su-aashu waxa ay tahay ilaa intee ayay sii wadi karaan iska caabintan. warbixintan kooban waxaynu ku eegi doonaa 3 qalad oo uu sameeyey Zelensky kuwaas oo horseeday xaaladda uu maanta ku sugan yahay waddankiisa Ukraine. midda ugu horeysa waa filashada taageerada galbeedka. madaxweynaha Ukraine ayaa filayay in gaashaanbuurta NATO ay si weyn ugu hoylin doonto islamarkaana ay ka difaaci doonto duulaanka Ruushka. inkastoo dalalka NATO ay taageero u muujiyeen Ukraine, haddana ma gaarsiisana heerkii laga filayay. Zelensky ayaa sanadkii 2021 sheegay inuu rumaysan yahay in Mareykanka oo hormuud u ah NATO uu u ogolaan doono in Ukraine ay ka mid noqoto gaashaanbuurtaasi. madaxweyne Biden ayaa ii xaqiijiyay in Ukraine uusan meel cidlo ah uga dhaqaaqi doonin, ayuu yiri mar uu ka hadlayay kalsoonida uu ku qabo Mareykanka. laakiin maxaa ka dambeeyay? wuxuu intaasi raaciyay in uu dareensan yahay in madaxweyne Biden uu si gaar ah u danaynayo in Ukraine ay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO. markii uu dagaalka bilowday, Zelensky ayaa ka codsaday gaashaanbuurta NATO in ay u xirto hawada dalkiisa si Ruushka u awoodi waayo duqeymaha cirka ee uu ugu awood sheegtay Ukraine. taa lagama yeelin. sidoo kalena waxaa ilaa hadda ay NATO ku heshiin la'dahay in diyaarado dagaal lagu taageero ciidamada waddanka Ukraine. Ruushka ayaa ku hanjabay in haddii la xiro hawada Ukraine ama lagu taageero diyaarado dagaal ay taa ka dhigan tahay in cidda sidaasi samaysa ay si toos ah ugu biirtay dagaalka. qodobka labaad waa muhiimadda Ukraine ay u leedahay galbeedka. madaxweynaha Ukraine ayaa marar badan ku celceliyay muhiimadda uu dalkiisa u leeyahay galbeedka, gaar ahaan wadamada Yurub. waxa uu Ukraine ku tilmaamay gaashaanka Yurub. Zelensky ayaa sheegay muddo 8 sano ah ay ciidamadiisu hortaagnaayeen Ruushka, isagoo ula jeeda dagaalka xooga gooni-goosadka ah ee Ruushku taageero ay ka wadeen bariga Ukraine. muddo 8 sano ah Ukraine waxa ay ahayd gaashaan. muddadaasi Ukraine waxa ay u babacdhigaysay mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan caalamka. tani ayaa ka dhigan in haddii aan la ilaalin madax bannaanida Ukraine aysan amni waara heli doonin Yurub, ayuu yiri. qodobka saddexaadna waa faham la'aanta ujeedka Putin. dhowr toddobaad ka hor inta uusan bilaaban duulaanka Ruushka, madaxweynaha Ukraine ayaa ku adkeysanayay in uusan dhici doonin dagaal weyn, islamarkaana uu Putin doonayo in uu cabsiyo Kiev si uu uga helo waxa uu ka doonayo. 28 January ayaa Zelensky waxa uu sheegay in warbaahinta ay ka badbadisay xaaladda, islamarkaana ay tahay in la joojiyo xaalad abuuridda. dareenka ay warbaahinta faafinayso ayaa ah in uu dhici doono dagaal weyn oo uu hadda socdo diyaargarowga ciidan oo ballaaran. waa arrin cabsigelin ah oo aan loo baahnayn, ayuu yiri. ma jirin cid saadaalin kartay in Putin uu si fudud ku qaadi doono duulaanka, maadaama ay uga digeen madaxda wadamada galbeedka looguna hanjabay cunaqabateen aan nooceeda horey loo arag. Zelensky hadda ma joogo meel uu ka soo noqdo, waxaana u furan 2 wado oo kale ah. kow, in uu iska caabinta sii wado meesha ay doontaba hala gaartee, ama 2, in uu Ruushka u ogolaado waxyaabaha ay ka doonayaan. tan dambe ayaa markii hore ku koobneed dhexdhexaadnimada Ukraine iyo sidoo kale in dalkaasi uusan weligii ku beeri karin NATO, balse hadda waxaa soo baxay in Moscow ay wadato dalabaad kale oo ay ka mid yihiin in Kiev ay ka tanaasusho gobolada Crimea iyo Donbass. waana arrin kale oo aad u culus. daawad aragtidaada qaybta hoose inoogu reeb barnaamijkeenii xogta dunida oo aad ka daawanayseen kulmiye showna wanaagintaas. barnaamijka midka xigeentan ku kulmi doonno waa saaxiibkiin kulmiye oo idin leh nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.